degmada Woodward ayaa maanta waxaa ka bilowday olole ballaaran oo lagu ururinayo qashinka isla markaana lagaga ururinayo guud ahaanba degmada iyo weliba xaafadaha ay ka kooban tahay deegaanka. Ololahan oo uu soo qabanqaabiyey ururka daryeel dadka iyo dalka ee deegaankan Woodward ayaa subaxnimadii hore ee saaka ku bilaabay guud ahaanba xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee deegaankani ururinta qashinka. Sidoo kale ururkani qashinkan ururinaya ayaa waxaa daba socday dayactir ay ka wadeen wadooyinka biyuhu fadhiisteen iyagoo ku buuxinaya dhagaxaan iyo jay si aysan halkaasi u sii noqon meel biyo fadhiisin ah. Ololahan oo in muddo ka socday deegaankani ayaa ugu dambeyntii qashinkani ururinayay ururkani oo ahaa mid lagaga hortagayo nadaafad xumada waxaa lagu soo shubay goob ka baxsan deegaanka Woodward kana xigta dhinaca galbeedka deegaanka, iyadoo ugu dambeyntii halkaasi gawaadhidii qashinkaasi lagu gurayay ay ku soo rogtay. Halkaasna waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka iyo afhayeenka iyo weliba shacab ka mid ah shacabkii qaybta ka ahaa ururinta qashinkaasi. 3,000 oo shilin oo deegaanka ka ururino, deegaanka 3,000 oo shilin qof kasta calaamad meherad laga qaadaa. 3,000 baan shidaalka ugu bixinaa, dhaqaalaha ururka laga qaadaa ururka laftiisa. waxaasoo isku dardaray baan waxaanu ka sameynaa inaanu qashinka baabuurta shidaalka u gelino, shaqaalaha aanu gelino, lacag ku bixino, shaqaalaha ka shaqeynaya wadooyinka kaga shaqeyno. codsanaya dadka u dhashay deegaanka Woodward laga dhiso xag waxbarasho in laga dhiso, xag sanitationka in laga dhiso iyo ololaha nadaafadda iyo waxaanu qabano gaari deegaanka loogu shaqeeyo hadii la helayo in gaari loo iibiyo. waxyaalaha kale ee magaalada la doonayo in wax laga qabto waxaa ka mid ah wadadii Dalaamacna iyo Woodward dhexdooda way dooday laba maro. xaggana waxaa ka xigay Bilaarac iyo Woodward dhexdooda 18 kilomitir iyo 18 xaggana way go'an tahay wax la maro ma dhagaxan inta la leeg ba ka taagan meel la maro ma leh. soo jeedinaya shirkadda Telesom oo ayana qayb libaax ka qaadatay hawlgalkan aan ku jirno ama dantana deegaanka aan qabadkan deegaanka qabanano. xubin muhiim oo mahad ballaaran uga soo jeedinayna gaar ahaan maamulaha shirkaddan Cabdilaahi Cawad leeyahdo ayaan mahad ballaaran u soo jeedinayna. xigta fursad kale ayaan rabaa inaan ka faa'iideysto ururkan waxaa ruuxaantii ka qayb qaatay oo ayana mahad mudan qurbo joogta deegaankan ayaa qayb libaax ka qaadatay asaasidiisii hore. inkastoo xoogaa dhaliilay ay iska jiraan ururkii markii ay sameeyeen baahiyo fara badan oo markaa ururku u baahnaa ama la shaqeyn ay xoogaa ka habsaameen. hawshan ururka dhalinyarada daryeel ay ka hayeen degmada Woodward jimco kasta olole nadaafadeed ayaa deegaanka jiro laga wadaa. toddobaadkii walba mar ayaa la qaadaa qashinka. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa. waxaan ka codsanaynaa shacabka inay la shaqeeyaan ururka dhalinyarada daryeel sida hagar la'aanta leh ay ugu shaqeynayaan dhulkooda in lagaga daydo la shaqeyn doono oo ka shaqeynaysa qashinka iyo wadooyinka dhulka mareennada shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda. ummadda shacabka ee ku nool Soomaaliya ay dhammaan waxaan ku doorinayaa inay ku daydaan oo ururka daryeel ay ku dooriyaan quwad iyo maalba, iyadoo ay meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah looga baahan yahay waxqabad iyo muujin iyo taakulo. Si kastaba xaaladdu ahaatee ururkan oo jimco kasta deegaankani ka ururiya qashinka isla markaana kala dagaalama nadaafad xumada deegaanka ayaa baaqaq kala duwan u soo jeediyey dadka diyaasbarada ama qurbo joogta ee ka soo jeeda deegaankani sidii ay u sii garab qaban lahaayeen ururkani oo markaasi ka cabanaya dhinacyo badan. Cabdi